tirsiga saacadaha iyo ilbiriqsiyadu waxay isriixaanba 35 maalmood oo ay ku jirto 2 toddobaad oo dheeri ka ah waqtiga dastuuriga ah ee xukuumad Puntland magacaabisteeda lagu soo magacaabi jiray ayuu madaxweyne Dani ku magacaabay golihiisa wasiirada oo aragtiyo kala duwan laga bixinayo kana kooban 49 xubnood leebka ama qaansada waxaa dib loogu geejiyaa marka la ganayo inuusan ka soo komarin bartilmaameedku halka uu yahay waxaana la daahida golaha wasiirada dad badan u arkayeen kuwa laga fiirsanayo isla markaana lagu dabaqayo inay noqdaan kuwa la jaan qaadi kara marxaladda adag ee ka jirta Puntland kana saari kara bulshada dhibaatooyinka ku geedaaman saasoo ay tahayna waxaa jiray dareen hoos u dhigaya maxsuulka ka soo baxaya iyo waqtiga badan ee ay galiyeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu dhismaha wasiirada cusub dhanka tirada xukuumadda isbedel weyn kama muuqdo inkastoo ay dib ka tarmiyeen labadii madaxweyne ee ka horreeyay madaxweyne Dani wuxuuna noqonayaa golahani kii ugu badnaa oo la soo dhiso bilow xukuumadeed intay Puntland jirtay kaliya labada wasaaradood ee dastuurka iyo dib u dhiska xukuumadda madaxweyne Gaas ayaa la laalay halka wasaarad loo bedelay biyaha macdanta iyo tamarta oo hay'ado madax bannaan ay ku shaqayn jireen waxaana sida muuqata wasaaradani cusub ay gashay midood booska laba wasaaradood ee deegaanka iyo beeraha oo hal mid la isugu geeyay inkastoo aysan si rasmi ah u qeexneen qaabka la isugu dhafayo maadaama ay shaqaalo iyo xarumo kala duwan lahaayeen 10kii sano ee la soo dhaafay sawirka laga bixinayo tayada xukuumaddan ha ahaado mid aragtiyo kala duwan ku salaysan balse dadka sida dhow la socda siyaasadda Puntland una darsay xukuumaddan cusub ayaa isku raacsan in dhammaantood xubnahani ay u badan yihiin kuwa layli ku ah mashraxa siyaasadda dhalinyaro badan ha ka dhex muuqdaan haddana waxaa la xusayaa in dhammaantood ay u badan yihiin dad xilal waaweyn aan ka soo qaban maamulka Puntland una badan dad ka soo shaqeeyay hay'adaha samafalka ganacsiga iyo xafiis hoosaad aan gaarsiisaneen awoodda siyaasadeed ee haykalka dawladnimo banaadir waa bajoogne baydhabo kismaayo yaa soo baadhay xarumaha ciyaartoyga soo baxay balnooshe in badan oo ka mid ah shacabku waxay isha ku hayaan xubnaha loo igmaday wasaaradaha safka hore ama eeda loo yaqaano kuwaasoo lafdhabar u ah horumar laga sameeyo ammaanka dhaqaalaha maareynta mashaariicda horumarneed sida kaabayaasha dhaqaalaha adeegyada bulshada iyo gaarsiinta Puntland himilooyin ay ka gaabisay 20kii sano ee ay jirtay iyadoona duruufta musuqmaasuqa iyo kala daadsanaanta haykalka dawladnimo uu marayo xilligan meel aad u liidata si gaar ah wasaaradaha amniga iyo maaliyadda Puntland oo ku suntan lafdhabarta maamul ama dawlad kasta oo dunida ka jirta ayaa mas'uuliyiinta loo magacaabay laga dhursugayaa siday uga dabaashaan dhibaatooyinka dhaqaale iyo amni ee ay waqtigan ah kuwa xad dhaaf ah iyadoona 5tii sano ee la soo dhaafay labadan hay'adood ay ku guuldareysteen dhaqaajinta iyo la imaanshaha siyaasad kobcinaysa horumarinta dhaqaalaha bixinta mushaaraadka sugidda amniga iyo difaaca xuduudaha waxaa xusid mudan golihii xukuumadda madaxweyne Gaas oo 60 ku dhawaad ahaa inuu ka soo laabtay hal xubin oo ahaa wasiirkii cadaaladda balse iminka isu bedelay wasiiru dawlaha madaxtooyada iyo dastuurka markii ugu horeysay taariikhda Puntland madaxweynihii xilka ka degay wuxuu wareegto ka soo saaray intii uusan magacaabin December 3 guddiga ansixinta baarlamaanka in haweenka Puntland qondo 30% ah ay ka helaan golaha baarlamaanka balse natiijadii ka soo baxday ku dhawaaqistii baarlamaanka shanaad waxay u ekeed mid uga sii dartay haweenka oo hal kursi ka helay 66 ka mudane waxaana sida muuqata
si aan ka fogeyn ay qondo ka heleen haweenku golaha xukuumadda madaxweyne Dani kuwaasoo helay hal wasiir iyo 2 ku-xigeen ilaa ay haddana lama oga siday uga falcelin doonaan haweenweynaha Puntland isbedelada doorashooyinkii ka dhici jiray Puntland si ka duwan ayaa loo soo dhaweyn 8 Janaayo markii la doortay hoggaanka sare ee Puntland waxaana taas lagu daboolay caleemasaarkii madaxweyne Dani iyo ku-xigeenkiisa Crash lagu casumay badi siyaasiyiinta majaraha u haya heer gobol iyo heer qaran iyo dad caan ah balse hadda waxa la isweydiinayaa waxa lagu dabooli doono falcelinta shacabka oo wali u muuqata kuwa si taxadar leh guud ahaan marka la eego uga gaabinaya u riyaaqida golaha xukuumadda den abuurka gobolada Boorame Hargeysa Burco Sana Bari iyo Nugaal Buuqaale Mudug iyo Beledweyne yaa tagay